ahaantii maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo maamulka deegaanka Janaale qorshayaal badan ay wadeen oo dadku ay ku heli karaan biyo run ahaantii gobolka Shabeellaha Hoose qeybihiisa kala duwan dhammaan ama Soomaaliya oo dhan abaartu way saameysay biyo la'aantana meel walba ka jirtaa markii loo eego dhanka Janaale run ahaantii waxaan ku jirnaa xabsi kor ka furan wadooyinka dhan way xirxiran yihiin dadku biyo yaraan xataa ma aha biyo la'aan jirto حتى عيلشي بريتك أهاي الجوري حالات وحلو جرا أو emergency أو دقيقة هاي مركا خرشال بدنا اسكو بيني هل بويد تعالى جنالة أو إليه نعلم الميلترية وحيد تعالى أوروبا سديتني أفراد وين نودين إن الشعب كبيسيان هناك واقع صني مدة وحن دبور ديني ويران لبي توان معلومات دبور داي شعبku maalintii 3 bood 4 bood maalin walbo ay u dhaamiyaan in shidaalkana maamulku uu bixiyo xataa ceelkii Amazon laga soo dhaamiyo Amazon way noo ogolaatay waxaan noo diiday taliyihii gaagaale ee dhahayaan 84 suurta ku sameeyay arintaas run ahaantii qorshe kala wadnaa oo dadku ay biyo ku heli karaan insha Allah maxay u sababeeyeen ciidanka xoogga inay diidaan in booyadooda loogu adeego dadka shacabka ah maadaama ciidanku u taagan yahay adeegitaanka shacabka kulay wax uu ka wada mareemi karo 12 maalmood aan ka xusanayay wuxuu diid maqeexan ah oo noo diiday xataa qoliyihii simga ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed reportka soo gaarsiinay ayaga hadda kulay isku maqan waxaa laga yaabaa inay jawaab degdeg ay soo siin doonaan insha Allah arintaas run ahaantii dadka shacabka Janaale waxaan ugu bishaareynaa ugu yaraan isla bishan gudahooda inaan u qodi doono ceelal kale oo dayactiri doono insha Allah muddo 10 maalmood gudahooda biyo ku filan heli doonaan dadka shacabka oo ooman biyaha ay cabaan la qorshe kale waa wadnaa haddii ay noo suurta gasho maalinta berito iyo beri dambe ay noo suurta gasho inaan tubooyin oo ku meel gaara inaan sameysano hawshaas waa wadnaa hal maalin ma ka fariisanin in dadku ay biyo helaan laakiin mar walbo caqabada ka hor imaanaysana wax lagu gudbi karo waa ogtahay si tartiib lagu gudbi karaa waa tahay guddoomiye inta badan haatan waxaa la la'yahayba biyihii la cabi lahaa sida aad sheegtay dhegeystayaalna ay sheegeen dhanka kale waxaa jira dad badan oo beeraley ah oo beerahooda ay ku tiirsanayeen webiga isla markaasina laga yaabo in waxyaabaha ay beerteenba deyn ay ku soo qaadeen oo ay filayeen in xilliga beerahaasi ay u soo go'aan ay iska bixiyaan isla markaasna ay waxa cusub ay beeranayaan haddana ay soo qaataan dadkaas haatan 2 toddobaad iyo ka badan beerahoodii biyo ma helin oo in ay khasaaraan ayay ku dhow yihiin waxaana hadda la leeyahayba sida aad sheegtay biyo la cabo dadka maxaa u xala maamulka muxuu ka caawin karaa sidee biyo loogu heli karaa ayaa is leedahay aad oo maasantahay run ahaantii cimilada hadda lagu jiro cimilo xun lagu jiraa dalagyadii la beeran jiray deertii hadda la soo dhaafay wax dalag ah kama bixin eri Janaale ku xitaagnayn xoogo waxa waaye cimiladii saameeyay sida hadda galay badana meesha ku oontay beero badana dumeen ayadoo biyo u jira xataa xoogo cimilada saameeyay haddana waxaa la galay xilligii ugu adkeed maadaama hadda jiilaal uu bilow yahay wax dalag hadda taagan ma lahan wixii taagnaane hore u burbureen waxaa laga yaabaa qof aal qotay iyo waxyaabahaas laga yaabaa laakiin sanad hadda lagu jiro markii laga soo baxay deerta wax dalag ma bixin jiilaalkana waaba ka sii daran tahay laakiin hadda waxaan rabnaa qorshe aan wadnaa oo aan diyaarinayno 10 beerood oo isku dhow inaan ceelal aan u faagno aan qorsheedii codsanay collusion farming la hayo inaan ka hirgelinaan rabnaa Janaale area insha Allah waa laga bixi doonaa marka waxa waaye waa ogtahay xaalad waxa lagu jiraa oo kala guura lagu jiraa marxalad lagu jiro dalka wal dareemi karaa caqabadaha saameeyay marka ayadoo saas ay jirto dadka siyaasadda isku hayo
markii aad eegto dadkooda hoosta ah ama tuulooyinka ma ka warqabaan, laakiin tuulooyinka anagaa ka warqabno baahidoodii iyo dherigtoodii iyo gaajadoodii oonkooda og. haddii oo dadkiina ay macnaha saan ay u dhibaataysan yihiin xaaladuna xaalad adag ay ku jirto, qof kusoo feeriilaya waxay tagaysaa marka inta aad rafa kartid rafo, inta aad dadaal kartid dadaal, si macnaha kala guurka loogu baxo. kadibna waxa waaye in macnaha rajo fiican ay helnaa laga yaabaa. marka waxaan rabnaa shacabka meel walba ay joogaan inay adkaystaan xaalad marxalada lagu jiro. nin walbo ninkii galaas b dad u geey karo inuu u geeyo, in hay-ad ama qof kale wax laga sugin. waa ogtahay madaxdu waa mashquulsan tahay, wasiiradu waa kala mashquulsan yihiin, marka qof walba kursi u ordaa. laakiin anaga hadda waxaa naga go-an dadka tuulooyin joogo iyo deegaanada joogo in arrintaas aan ka shaqayno oo dadkeena dowladnimada aan gaarsiino oo wixii aan qaban karno aan qabano. waata guddoomiye, ma samayseen ama ma isku daydeen inaad samaysaan iskaashatooyin beeraleya, ama haddii ay jiraan xataa ayaga dhexdooda dhaqaale aruurin iyo wax isku darsi inta la sameeyo maamulkuna hoggaan u noqdo, dadkaasi iyaga ay isku tashi sameeyaan? janaale hadda deegaanada waxay ku jirtaa go'doonsan oo maaragtay dhinacyada ay shabaab ka kala joogaan, in dadkii ayaga inay isku tashtaan oo ceelal qodasho hadday noqon lahayd, hadday biyo dhaamin noqon lahayd, wax maamulku uu kor ka hago laakiin dhaqaalahu dadka deegaanka ay bixsadaan oo maaragtay gacmo wada jir ay wax ku gooyaan, iskaashi ay wax ku qabsadaan. qaab noocaasa maamulka isdhexgal bulshada ma isku dayay? runaantii waa sameynay. bishii hore waxaan sameynay iskaashatooyin oo hadda aan u diyaarinayno 2022 aan u diyaarinaa jirtay. haddaan rabnay inaan abuurno fikir noocaasa, waana noo abuuran yahay. laakiin inta badan markii loo eego erida janaale 3 arrin ay iskugu jirtaa dadka beeraleyda ah. mar ayagoo biyo raadinayo inaad la kulanto, oo ayagoo mir qabin, oo nin ka ooman, dalag ka ooman, moos ka ooman, biyo raadinaa. marka kalena waxa waaye waduu raadinaa, wadda uu maru raadinaa. hadda mar waxaa jirto mooskii aan barwaaqadii dhacdo qudaartii ay soo goodo, meel la marsiin la waayo goodan darteeda, wadooyinku cakiran dartiisa. waxa waaye xaalad waxaa lagu jiraa dadka reer janaale beeraleyda waxay ku sugayeen xaalad adag ay ku tacbayaan tacbiyada. runaantii ninkii shalay xoogoo markii mooska uu soo baxay lacag fiican ka sugaayay, markuu waddo uu ku khasaaro sugaa. haddana wuxuu sameynaa kis yar uu helana wuxuu raadinaa biyu ku raadinaa, mar balcad inuu tago biyo soo gato, biyo haddana dhex lagu isticmaalo. wax saasa camal xoogo waxa waaye xaaladaasaa jirto. in wadda loo helo, market fiican loo helo, suuq fiican loo helo, dadku sidii ay macnaha ku geysan karaan qudaartoodii iyo wixii ay soo saaraan. haddii suuq fiican ay helaan waa la samayn karaa. marka waxaa laga la'yahay marka dadku waxay la'yihiin dhiirigelinay la'yihiin. marka dhiirigelin fiican ma haystaan, xaalad adag ay wax ku tacbooyeen. waxaa laga yaabaa in 2 qori afkooda ay wax ku tacbaan, xabadda inay wax ku tacbaan. marka qabta qorshayaal u diyaarin. marka wasaaradda beeraha koonfur galbeed la kaashanay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose, waxaan rabnaa marka hadda mar dhow insha Allah closing farming inaan sameyno, aan 10 beeroodba aan ceel u qodno, si ay biyaha iyo wax walba ay jiilaal iyo gu-i darbo ay u samaystaan. waa tahay fariintaada ugu dambeysay aa u dirayso dhammaan bulshada Soomaaliyeed deegaanada kala duwan ee laga dhageysanayo. kulley waa kula xaalada oo deegaano badan ay abaaraha ka jiraan, gaar ahaana shacabkaaga degmada janaale ee ku dhageysanaya dhegta ku haya Nation FM. fariinta aad u dirayso maxay tahay guddoomiye? fariinta aan u dirayo waxa waaye shacabkayga reer janaale, waxaan leeyahay mar dhow insha Allah waa laga bixi doonaa oonka. ceel fara badan aan rabnaa inaan ka howlgalno insha Allah. iftaan waa arki doontaan. tan kale fariinta aan u dhaafay waxa waaye ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, si shacabka u caawiyaan, in ciidanka jooga janaale inay saas u caawiyaan oo kale. runaantii markii aragto ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo meel walba joogo oo shacabkooda biyo gaarsiinaya, markaad aragto markii aad aragto caqabadaha anaga hor imaanaya, markaad aragto xoogo waxa waaye xaalad adag, xaalad waxa ku muuqanayso oo kale. marka waxaan rabnaa marka qof walbo inuu ku daysado qofka wanaagsan,
waxaan leeyahay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaarkii shacabka u gargaaray waa mahadsantihiin qaarka kalena inay ku daydaan dadka wanaagsan insha Allah waxaan leeyahay ilaahay hanaga saaro Soomaaliya oo dhan abaartan bari badan iyo bukaan far badan dadku kugu nacayaan inaan dad bariinne aan isku tiirsanaano aan sameysano dadka kale waxaan leeyahay dadka hantida haysto waxaan leenahay meelaha oonka ka jira meelaha abaarta ka jiraan in dadku ceel u qodaan xoolaheeda ay biyo waraabiyaan meel walba macnaha ay gaarsiinayaan si macnaha ay u helaan ajar iyo xasanaad iyo aakhiradooda macnaha wax fiican inay ka dhigtaan waa maasintiin dhammaan